Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada Istanbul Kitchen. Maanta waxaan sameynaa insha Allah hilib kalaankal insha Allah. Waxa weeye hilibka inta aan ka sameynayo waxa weeye beef ama hilib lo saa u taqaanid waa lo soo jarjaray laakiin waxaan geliyay freezing-ga geliyay qaybta hore insha Allah laakiin waa jarjaran yahay insha Allah. $10 waaye. Cusbo waxaan uga dhigayaa bajiganeeto wax yar oo xawaasha ku darayaa oilka isticmaalaya noocan waaye ama saliidda canola oil mar walba canola oil aan isticmaalaa haddaan wax walba karanayo insha Allah hadday shiilitaan tahay haddaan wax ku dubaayo bariis haddaan ku karanayo maraq saliidda noocan aan isticmaalaa mar walba canola oil saliidda jeceshaa isticmaali kartaa laakiin tana aan ka jeclaa insha Allah intaasaan karsanaynaa haddana dabkaan aadaynaa insha Allah intaan kusoo shubay insha Allah marka maadaama uu freezer yahay ama qabow yahay biyo dhali doonaa insha Allah marka saana kusoo wadaaya intuu biyaha ka dhalayo insha Allah biyo soo dhalay marka saasoo walaaqaynaa intaan sugaynaa biyaha ku kursanayo insha Allah biyo aan ku daray ma aha waa biyo isaga dhalay insha Allah marka saasoo kusoo wadaaya wajigaan ku darayaa insha Allah weli biyo kuma darin biyihiisa waaye iyo xawaashka waxaan rabaa inuu si fiican ugu karo digana insha Allah saasoo kusoo wadaaya insha Allah biyaha wuu soo karsaday marka waxaan yeelaa aniga biyo isagoo iga karin hilibka waxaan jeclaa inuu jilaac noqdo marka waxaan ku darayaa wax yaro biyo kulul waxaan rabaa mar dambe haddana inuu si fiican ugu soo karo insha Allah waxaa biyo kuleel hilibka si fiican inuu iga karaan jeclaa adeeg laakiin ma cuni karaba adeeg ma jiro marka waa soo karinayaa haddana biyaha intuu kasoo gursanayo insha Allah biyihii wax yar ku haray waan soo gursan rabaa insha Allah hilibkana waa noo soo karay marka wax yaraa sugayaa inta biyaha seeto oo ka gursanayo insha Allah waa walaaqaysaa si kulligiisa u karo wax yaraa ku haray insha Allah saasaan kusoo wadaaya maasha Allah biyihii waa kursadeen insha Allah hadda saliideena ku shubanaynaa saliidana kuma kabinaysid wax yar intaas aan ku shiilaya maasha Allah sida u walaaqaysaa haddaa basal jeceshahay basal waa ku dari kartaa waxaa dundida ku darsan kartaa choice-ka adaa iskale maasha Allah laakiin basalna kuma daraayo maanta intaasoo jeceshaa marka saanaan kusoo wadaaya insha Allah soo shiilaya maasha Allah waa soo gudguduutay hilibkeena waa noo diyaar insha Allah saasaa laga rabaa wayna kaa gubaleen markaa dabkan qayaas ooga dhig markuu saanyaa oo shiigaysid dabkana qayaas ooga dhigaa ani intanaan ku dhaafa kalarka haddii kale waa kusii dhaafan kartaa haddaa rabtid in sii yar guduuto laakiin intan ugu filan maasha Allah inaga aada ahan waa dhaldhalaanka maasha Allah insha Allah marka meelaan kusoo shubanayaa soo kusoo baxa wax kastana waa ku cuni kartaa canjeero hadday tahay malawax rooti muuqo wax alaala waxaa jeceshaa ku cuni kartaa maasha Allah markaasaa inaba aada ahaan si fiican wuu iigu soo koray maasha Allah waa ka degsanayaa dabkana ka dumiya maasha Allah kalaankalkeena saana kusoo baxay anaga canjeeraan ku cunaynaa shaahaaga madowga dhab isku sii waa
maxaa kaa maqan insha allah. haddaa ka hesheena subscribe-ka, like, share, kaminkana waa dhinaciina.